madasha badbaado qaran oo ay samaysteen siyaasiyiin mucaaradsan farmaajo ayaa shalay galab iyana dhankooda ku dhawaaqay shir muhiima oo ay sheegeen inuu maalmo u socon doono gudoomiyaha madashaas cabdi xaashi cabdilaahi ayaan ka wareystay bal waxa ay ka shirayaan iyo habka uu qorshahoodu yahay shirkan bilowna waxa weeye maalin dhaweyd waxaanu samaynay madal badbaado qaran ujeedadan leenahayna waxa weeye dalkan sidii loo badbaadin lahaa dhibaatada hadda dhacday waxa weeye hadda muddadii dawladdu waa dhammaatay madaxweynaha wuxuu ku ekaa bishii February 8 ayuu ku ekaa baarlamaankuna sidoo kale wuxuu ku ekaa December 27 labadiiba ma qabsoomin oo doorasho ma dhicin waxana weeye khilaafkiina waa sii siyaaday laguma heshiin marka bal haddii xaalka sidaa yahay oo dhibaatooyinka aad sheegteen doorashadii ku gadaaman tahay idinku haddaad tihiin madashan la magac baxday badbaado qaran xalka aad haysaan ee aad ku xalinaysaan muxuu yahay waxaan rabnaa Soomaaliya oo dhan baan rabnaa xal in la gaaro heshiis la gaaro ma warka anigu yani dhibaato dagaal iyo wax xal inay yihiin ma arko waxaan u arkaa si nabad ah in inta la isu wada yimaado la isqanciyo la heshiiyo oo wax dadkan iyo dalkan wax taru leh hadana agoon la socota Soomaaliya maanta waa dalka kaliya adduunkan ee caasimadiisa qofkii ka tagaya degmo inuu tago oo diyaarad ka raacayo weey oo ina degmo u gudbi karin halkaynu taagannahay kolka halkaasi horta weey halka xalka u baahan taa weey kolka xal bay u baahan tahay heshiis bay u baahan tahay wada shaqayn bay u baahan tahay dawlad dhisanta oo la isla ogoliyay u baahan tahay arrin haddii mudane doodiinu tahay in xalku yahay in la wada heshiiyo oo dhinacyada ay siyaasadani midaysa isaga yimaadaan shirka kale ee dhinaciina ka socda ee madaxweynaha iyo qaar kamid ah maamul goboleedadu ay ku shirayaan maxaa ka qayb ugu noqon weydeen oo ay idinku wax galdaacineysaan maba la iyo ogolay maxaan ka qayb galaa anigu maba diidani laakiin la iima ogolo waxaan ahayna siyaasi dalkan 30 sano ee dhibaatadu jirtay u taagan midnimadiisa iyo nabadiisa kolka dad shalay yimid oo xaaladda dalkan soo maray ogeyn ayaa aniga ii diiday inaan ka qayb galo arrinta xalka Soomaaliya laakiin maamulada aad madashan ku hogaaminayso ee ay kamid yihiin Jubbaland iyo Puntland soo iyaga looma ogoleeno ma ahayn inay halka ka qayb galaan hada waxa weeye maamuladu kolkaasi waxay leeyihiin wax garaayay keen sababta dadka saamiga siyaasadda ka wada qayb galaan bay leeyihiin cid siyaasadii lukula oo qayb ka ah in la yiraahdo kama qayb galayso tabtaasi maxay halkay keenaysaa halkay tag laakiin imika hadii aad isku madal ku jirtaan oo dabcan sida muujinaysa aad arrimaha badankooda isku aragti ka tihiin miyaanay halka kugu sii matali karin iyagu si waqtigana loo beeqaamiyo xaalkana loogu heshiiyo hadda waxa weeye dhinacyadu in la heshiiyaan anigu fikirkan qabnaa ee madashani ay qabtaa waxa weeye in la heshiiyo la isu yimaado waa wax dadka oo dhan ka dhaxaysa waa in la isu yimaada oo dalkan xal loo gaara nabadeed midayn isu duwid loo gaaro madashani intay qabtaa intaa weey dhinaca kale tan iyo markii lagu magacaabay xilkan ah gudoomiyaha madasha badbaado qaran dad badan ayaa su'aal gelinayay sharcinimada aad xilkan ku qaban karto adigoo dhankii kalena gudoomiyihii aqalka sare adiga arrintaasi walaaca sharci ay leedahay ma ku muuqdaa waxaan isleeyahay waxaan filayaa inayna halka sharciyad yani diidaysa ayna jirin dadii oo dhan baa xilligeedii dhamaaday xalna ma hayno waa inaan xal helno marka qorshaha qolada shirka kale ee idinka dhinac socda ku jirta aanay haynin ee aad idinku haysaani muxuu yahay qorshahaas qorshuhu waxa weeye in la isu wada yimaado oo la wada tashado oo la heshiiyo oo ayna noqon arrin xil inayna noqon in lagu kala tago ee dadka iyo dalka loo naxariisto loo raxmo oo kolkaasi laga baxo dhibaatadan oo laga heshiiyo kaas waxa uu ahaa cabdi xaashi cabdilaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena imika ah
gudoomiyaha madasha la magac baxday badbaado qaran ee ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin ka kooban madaxweynayaal maamul goboleed madaxweynayaal hore iyo isaga iyo kuwo kale oo u sharaxanba xilka madaxweynaha oo mucaaradsan madaxweyne farmaajo haddii aynu eegno bal qodobkaas iyo waxa ay ka yidhaahdeen qaar ka mid a dhegaystayaasheennu aan ku bilaabay maxamed shaafi oo ku sugan caabuda quxuri jahawareerka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya runtii waa arrin walwalkeedii walaaceeda leh waxaan nagu baaqayaa madaxda Soomaaliyeed in Ilaahay ka cabsadaan buu yiri oo ay iska dhaafaan danahooga siyaasadeed ee gaarka waayo ijiidaan ku jiide waa gacmadaalis buu yiri dhageystahani dhageysta kale oo Sakariya Raage Bootaan wuxuu jooga baaltaag meel la yiraahdo oo ku taal dawladda deegaanka Soomaalida wuxuu yiri xaaladda siyaasadeed ee wali cakran waa wax laga xumaado Soomaalidu iyadu dhexdeeda heshiin weydo oo xataa soo horfadhiisan weydo haatan ayba marayso haddaan shacabkiinahay inaan beesha caalamka iyo dalal shisheeyaan ka warsugno sidoo kalena shacabka Soomaalidu madaxdii Soomaalida waxayba hadda ka jecel yihiin James Swan oo isagu ku hawlan buu yiri inuu isu keeno madaxdii Soomaalida